الحمد لله الذي أوجب على المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحباب. الحديث الرابع والثلاثون حديث كأفرئي الصدنات عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. حديث كان وهانا صوري أبي سعيد الخدري مقيس وانا صهر مري وهذا لها أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري أيالي رهدا saxaabadii oo waaweyna ayuu kamid yahay oo diinta nabigeena kaleey salaatu wasalaam noogu soo dhaxlay umada soo gaarsiiyay ayuu kamid yahay. qaala wuxuu yiri sami'tu han maqlay rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam nabigeena suubana ayaan maqlay buu yiri yaqul asoo dhahay anaab dhigteedu ku maqlay buu leeyahay man ra'a minkum qofkii arka idin kamid ee munkaran qofkii idin kamid ah oo munkar arka فليغيره منكر كي هكو زوليو هكو بدلو بيده قعنتيس فإن لم يستطيع هدي أود أهانين فبلسانه عربكي سكو بدلو فإن لم يستطيع هدي أود أهانين قلبه سكو إنكرو قلبه سهكنعو وذلك قلبه لغنعو أي أضعف الإيمان إيمانكو كان أغير واكا رواه مسلم حديث إمام مسلم وريه. meeshan rasuulkeen alayhi salaatu wasalaam ummadda wuxuu faraya in munkarka haddii la arko in la bedelo oo la zuuliyo qofkii tabar u leh inuu gacanta la galo gacanta oo awood ku zuuliyo waajib waxay ku tahay inuu gacantiisu ku zuuliyo. taas waxaa iska leh dadka awoodda leh haddii adiga madax meel ka tahay oo qofka dadka dowladda muslimiinta ayaa laga raba arrintaasi inay sameeyaan. awood buu leeyahay askar uu haastaa awooduu leeyahay munkarkii dhulkii asaga xukumahay oo lagu arko asagaa gacanta ku zuulinahaya. nacam adiga qof kastana meel uu dawlo ka yahay ayaa jirta gurigaada dawlo ka tahay adiga islaantaada wiilkaada caruurtaada gurigan waa dawlad yaray waay adiga mas'uul ka ah. haddii adiga gurigaada dhexdiisa munkar ku aragtid واجب كويهاي إناد gacanta ku zuuliso awood u sheegato awood ku bedesho. nacam kuma banaana in wax awoodda adaga u leedahay ay cidaada dhexda gurigaada dhexdiisa daartii ilaahay ku dejiyay ilaahay ku mulkisiyay dhexdeeda haddii munkar lagu siiyo oo munkar lagu sameeyo adiga aad ka aamustid aad bedelin waysin dambiilaha waa adiga zaalimka waa adiga kan diinta xalleeyay fisaadiyay waa adiga. فإن لم يستطع هدي أودين ما أنت قف كان مسؤولية وين ماهايو أرنت جورجيسنا ماها منكر كانوا أركيها سيبو يليا فبلسانه أربك كزولنا يا وقيلنا يا وحضيا ووعدنا يا أرنتي إنه سكود أرنت عن سي لو بدل لها أيو فلك يذكرها هديب نبعتبك سوغارين أود لسان هدو هايو أو أود وركيسنا الصعونة هاي واجب هاكو تاي إن أسجنا عربكو كبزوليو. فإن لم يستطع ما أنت مأوذه حتى هدو حدلو وقبل الدلها ياب لبعتاك سيئن وقو إيمان يسب ما أنت مأوذه سيئله فبقلبه قلبك سهاكو زوليو قلبك هاك النعو قلبك هاك إنكرو قلبك هاك النقضة وذلك قلبك لك النعو أو لك زوليو أضعف الإيمان إيمانك ميش أخيري هاي حديث لفظ كان وهو ليه نبينا عليه الصلاة والسلام وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. قال يعني قلبك اللي زوليو هدي لوايو قلبك زولنتيس هدي لوايو وميش اسمية قف كاسو نبع wax shay ugu yar oo khardara la yiraahdo waa muro oo yar aad yar 60 oo kiyar oo kala waaye oo wax u dhigma oo iimaan meesha miyaalan buu nabiga kaleey salaatu wassalaam maanta hadda anaka
waxaad arkaysaa badideena waxa lagu nool yahay munkar lagu dhex nool yahay oo munkarnimadiis hataa la dareemaynin oo liskaga dhex nool yahay. nasalullaha asalaamata walcaafiya. walaalayaal munkarka la zuuliyo culamada muslimiinta waxay ku tiriyeen inuu yahay qaar kamid ah culamada qaar kamid ah waxayba ka dhigeenba rukn lixaad oo min arkaan alislaam ayba ku dareenba asalba islaamka arkaantiisa ayba ku dareenba weynantiisa iyo culeyskiisa. haddii ummadda muslimiinta dhexdooda uu jiro alamru bilmacruufi wannahyi can ilmunkar hadduu ka jiro waxaway diinta waa jiraysaa. haddii mar la waayo alamru bilmacruufi wannahyi can ilmunkar haddii la waayona meesha diin maba taalaba sideedaba. sidaas horta ayaa dhibaatada maanta muslimiinta haysato tan waayo. waxaa waaye munkarka qofka markii macruufka dadka faray munkarka reebahay laa shaka waa loo baahan yahay xikmad ayaa loo baahan yahay inuu maaragtay aad iyo aad u fiirsado sidii munkarkan ku zuuli lahaa oo muxuu ahaa munkarka daran imaan lahayn caqligiisa inuu sameeyo xikmad inuu isticmaalo inuu wacdi bixiyo inuu arrintan marka sidii dhibaatadan oo munkarkan muslimiinta dhexdooda ugu zuuli lahaa falkeed inuu gala ayaa muhiim ah iya qofka laga raba. marka walaalayaal ilaahay subxaanahu wataala qof kasta tabar buu siiyey awood buu siiyey haddii aad wax kala yeeli karin meel munkar ha dhex fariisanin ka dhaqaaji wax kale hadii taas waxaa tusay nacitaanka aad nacday munkarkan oo munkarkii marka dhinacyaal fara badan buu dadka kasoo galayaa. waxana maanta zamankeena dhinacyahiisa aad iyo aad bay u tirbateen. marka kuma banaana inaad munkar raalli ku noqoto wax ilaahay munkar maa la yidhahdaa wax diinta inkirtay way wax diinta diiday way wax ilaahay xaramay way rasuulkiis xaramay way. marka waxay meesha waxyaalahaasa in ummadda raalli ku noqoto maaha intii tabartaada ah. marka ilaaha subxaanahu watacaala xaqa hana waafajiyo. allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca wa arina albaatila baatilan warzuqna ijtinaabah. subxaanaka allahuma wabixamdika nashhadu an laa ilaha illa anta nastaghfiruka wa natuubu ilayk.